sidee aniga adigu kuu ogolaadaa adiguna anigu igu ogolaataa sidee reerkaygu reerkaagu ku ogolaadaa sidee reerkaaguna reerkaygu ku ogolaadaa sideen isu ogolaanaa is-ogolaansho waa su'aalo u baahan in la isweydiiyo si loo helo isu soo dhowaansho wada noolaansho nabad iyo horumarba hadda marka hore maxay tahay is-ogolaansho is-ogolaanshuhu waa awood u dulqaadasho jiritaan fikrad iyo dabeecad aan qofku jeclaysan amaba ka helin taasoo ah in qof urur ama qolo inay u dulqaadan karto fikrad aragtiyo iyo dabeecado ka duwantooda waa wax dabiici ah in la kala fikrado iyo aragtiyo duwanaado laba walaal oo isla dhashay laga yaabaa inay kala fikrado iyo aragtiyo duwanaadaan laakiin su-aashiisa waxay tahay sideen isu ogolaanaa inagoo kala fikrado iyo aragtiyo duwan haddaba maxay keentaa is-ogolaansho la-aantu is-ogolaansho la-aantu waxay keentaa nacayb nacaybkaasoo markii dambe isu bedeli kara dagaal iyo inaan la heshiin amaba la kala fogaado haddaba Soomaaliya ma ka jirtaa is-ogolaansho la-aan mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dr. Maxamed Cabdiqaadir Enow buug uu qoray oo lagu magacaabo Unearthing Apartheid in Horn of Africa oo laga heli karo Amazon waxaa laga dheehan karaa in bulshada Soomaaliyeed ka dhex jirto is-ogolaansho la-aan taasoo laga dheehan karo in qolo ama urur ay aaminsan yihiin inay ka wanaagsan yihiin qolo kale in qolo kale iyagana aysan qaban karin shaqooyin gaar ah maadaama shaqooyinkaas loogu talagalay dad gaar ah waxaa kaloo laga dheehan karaa iyadna Soomaalida oo ah dad isfahma haddana lahjado gooni ku kala hadla qolo walba oo lahjad gooni ku hadashaay waxay aaminsan tahay in suugaanteedu ay ugu wanaagsan tahay suugaanada kale una af Soomaali wanaagsan yihiin qolooyinka kale waxaa kaloo laga dheehan karaa in dad isbidayaan inay iskala weeyeen qolo kale caqliyadda isla weynidu oo ah iyadana caqliyad aad u hooseysa waxay meesha ka saaraysaa in la helayo is-ogolaansho haddaba si aan u helno nabad horumar iyo barwaaqo marka hore aan is-ogolaano